Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gaaliga waa idin salaamayaa dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay waqti walba ay ku tahay wanaagsan. Anigu waa maskiintii walaashiin ahayd ee Farxiyo Lucky. Halka aad iga daawanaysaan waa isla YouTube-kii Farxiyo Lucky. Waxaan idin leeyahay wanaagsan oo wacan daawadayaal. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkii wiilashii kufsiga u geystay gabadhii yareeda 14 jirka ahayd. Fadlan haddii aad barnaamijkayga ka heshay waxaad igu dhiirigelisaa inaad subscribe ii dhahdo, like-na ii dhahdo, iina sii share gareyso. Adigu waxba kaa dhibi mayso, aniguna waa ii faa'iido. Intaas ka bacdi waxaan rabaa waxaa la yiri wax walbo oo maxay aheedo qof uu sameeyo qara hadii is yiraahdo kolley Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa u jeeda. Mar walbana xaq uma qarsoomo. Maalin alla keena waxaad arkaysaa gabar la dilay, inta la kufsaday, la dilay, la qariyay. Haddana ma aqaano qofkii asagii oo la soo qabtay oo dambigiisa qiranaya ayaad arkaysaa. Taasi waxay ku macnaanaysaa marka Ilaahay wax walba oo saraali ka ahayn haddii aad sameyso waxba Ilaahay kama qarsoomaan. Si walbo aad isku qarisana wuu kuu jeedaa Allah subxaanahu wa ta'ala. Dambiga aad galaysidna wuu kugu xisaabtamayaa. Marka sidaas darteed wiilasha Soomaaliyeed ayaan la hadlayaa. Haddii aadan dambi gelin, haddii aadan gabar walaashaa dilin, daryeel aad u sameyso maxaa kaaba aayo. Wuxuu yiri waan kufsanay. Markii aan kufsanay oo damiicina qaaday kadib ayaan waxaan is dhahnay yiri haddii aad sii daysaan way idin sheegaysaa waana la idin dilayaa. Idin roonaan laheeda inaad iska sii daysaan kufsiga ugu ekeysaan kadibna magaaladeeda ay gasho. Maanta waa la idin xukumi lahay ama jeelada la idin dhici lahay ama waxaa la idinka qaadan lahay gogol la idin soo fariisan lahay oo Soomaalidu waxay dhahdo maxay aheedo xal iyo xumeyn ama gabadhaasoo mid idinka mid oo lagu daro unbay xal ku ekaan lahayd. Laakiinse ma garanay wiilasha Soomaaliyeed doqonnimada qaade. Haddii aaba kufsatay gabadhii nolosheeda ma dudeysid kolley qarsoomi mayside maalin baad banaanka imaani. Xaqu waa kii soo daahiro inuusan daboolmeynin wax way banaanku imaanayaa. Maxay aheedo wuu iskeenayaa banaanka iska kufso iska sii daa. Waxa waaye haddii ku sheegto bari wax unba imaanayo. Laakiinse maanta waad kufsatay ayada nolosheeda waa dhaafsiisay adigina waxaad islahayd isqari oo yaan lagu aqoonsan balse Allah ayaan waxba ka qarsoomin. Asaga ayaana kuu jeeday xaqana asaga ayaa soo ifiyay. Marka waxaan uga golleeyahay taas wiil walba oo Soomaaliyeed oo bari doonaya inuu gabar dhib u geysto. Haddii in case uu kufsado ay noqoto in uu kufsado nolosheeda iyo dhaafin. Because haddii isqari maagta qarsoomi maysid waxaad ogaataa saaxiibada meesha ay hore u mareen in aad adiguna maraysid. Marka adigana lagu maxkamadeyn doono kadibna meel fagaara lagugu toogan doono. Laakiinse haddii aad kufsi u geysatid waxaa laga yaabaa haddii aadan hore guur u soo marin jaadal in lagula dhaco lagaa bixiyay xaali xumeyn. Laakiinse haddii aad nafteeda dhaafisid naf la gooyaa ayay leedahay. Idinkoo gabdhaha Soomaaliyeed marka hore waxaad gudubka ka ilaalinayo haddiiba ay noqoto inuu shaydaan kugu qaado nafteeda inaad u badbaadiso isku day please. Haddii kale saaxiibada adiga ka horeeyay meeshii mareen ayaad maraysaa. oo iga dhiirigelin xilliga aan duubay waa saqdhaxo habeenimo. Laakiinse waxaan uga dan leeyahay oo aan la seexan la'ahay maalin walba gabaraa la dhibaateeyaa. Haddana kii dhibka u geystay Ilaahay wuu soo qabtaa. Ilaahay ayaa mahad iska leh. Dumarku waa masaakiin. Mar way idin dhaleen, mar way idin dhaxaan, mar adinkaa dhasheen, marna waxa waaye maxay aheedo
wax walba ayay idin yihiin. Idinkoo taas og haddii aad dhibaato u geysataan naaskina laga nuugay uurka idinku qaadnay dusha aan idinku sidnay dhedheel ma aan rago ogaada insha Allah. Intaas ayaan uga baxayaa. Waxaan idin ka codsanayaa walaalayga qaaliga inaan barnaamijkan isi share gareysaan qof walba oo igu cusubna oo subscribe ii dhaho like share tana oo hadda iga xastin insha Allah tacaala soo dhawaada aad ba idin jeclaa insha Allah adinkana waxaan rajeynayaa sida aniga idin jeclaa inay ii jeclaan doontaan biidnillah.